waxa uu iibgeeyaa in ka badan 50 wadan oo caalamka lacagtii uga badnayd ee uga soo xarootaana waxay ahayd lacag ka badan 1.24 bilyan oo dollar. maanta waxaynu ka hadlaynaa geedka loo yaqaano loofaha kaasoo ka tirsan qoyska loo yaqaano bocorka isla markaana uu soo saaro wadanka China waxa uu caalamka u iibgeeyaa geedkani loo yaqaano loofaha iyadoo uu ka soo saaro ama warshadihiisu ay ka hal abuuraan waxyaabo bulshada waxtar u leh taas oo boqolkiiba boqol lagu tilmaamo inay yihiin wax dabiici ah gaar ahaan waxyaabaha ku taxalluqa dhanka nadaafadda haddii ay tahay saabuunta iyo sidoo kale waxa loo yaqaan isbuunyada taas oo loogu talagalay qofka xilliyada uu ku jiro qubayska. isbuunyadu waxa sidoo kale loogu talagalay weelka iyo sidoo kale nadaafadda guriga iyadoo boqolkiiba boqol sida ay warbixintu sheegayso waxyaabo natural ama sidoo kale dabiici aan idhaahdee. adduunyada China isagoo marka horeba dhaqaalihiisa iyo hal abuurkiisa maskaxeed ku haystay haddana tani waa mid ka mid waxyaabaha dabiiciga ah ee uu dhulkiisa ka soo saarayo isla markaana uu adduunka u iibgeynayo. haddii aynu eegno wadamada soo saara horta China waa lambarka koowaad waxa ku xiga Hindiya iyo sidoo kale Bangladesh iyo wadamada la jaarka ah ee ku yaalaan qaaradda Aasiya. sidoo kale waxa jira wadamo qaaradda Afrika ku yaalo oo iyaguna soo saara laakiin China tartan kulama gari karaan oo isaga ayaa ku horeeya. warbixintan iyo muuqaalkan basiifogeesu dad badan u gaadho.